ciidamada booliiska gobolka Sool uu hogaaminayo taliyaha qaybta booliiska Ibrahim Jaamacad ayaa soo qabtay khamrigii ugu tirada badnaa ee abid lagu qabto magaalada Laascaanood. khamrigan oo gaadhaya 408 litir oo nooca dareejinta loo yaqaan ee lagu sameeyo dalka Itoobiya ayaa waxa la soo qabtay isagoo la doonayo in la soo geliyo magaalada Laascaanood waxayna ciidanka booliisku ku wareejiyeen maxkamadda gobolka Sool. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka khamrigaasi isagoo sheegay in aan cid lagu soo qabtay aysan jirin. khamrigii oo aan cidilo joogin oo gaarigii dadkii sida ay ka baxsadeen ay halka hawlgal taliyaha qaybta booliiska taliyaha ku-xigeenka iyo ay ugu baxeen ay ka soo qabteen khamrigaas oo dhan oo khamriga dareejinta lagu sameeyo dalka Itoobiya dhaladiiba uu ku jiro 1 litir khamrigaas oo sidaan hore u sheegnay aan cid lagu soo qaban. maxkamaddu waxay go'aamisay in la baabi'iyo in la burburiyo goob fagaaraha bulshada horteeda lana baabi'iyo dhammaantii la burburiyo khamrigaas oo dhan 408 litir. taliyaha qaybta booliiska gobolka Sool ayaa ka warbixiyay khamrigaasi iyo halka ay ka soo qabteen isagoona baaq u diray cid kasta oo doonaysa inay khalkhal geliyaan amniga sheegayna inay gacan bira ku qaban doonaan. waa qayb ka mid ah amnigu qayb ka yahay dhaqan xubadu qayb ka yahay dhaqaale burburintu qayb ka yahay dagaalka iyagana u qarin mayno horena waa u sheegnay digniina waa uga bixinay haldeerna waxaan uga diganaa cid kasta oo ku jirta rag badan oo haldeer ka baxay wuu jiray oo noo yimid oo ka ganacsan jiray ama ka shaqaysan jiray oo haldeer nala joogo ciidanka la joogo oo muxuu ahay magaalada joogo aan la ognahay inta kalena waxaan leenahay ilaahay soo hadiye laakiin waxaan u sheegnaa cidii aan ka soo noqon dhaqamada iyo hawsha aan ka soo noqon hadii hawlgalkan haduu ka soo noqon waayo cidii aan ka soo noqon haduu hadeersido iyo haduu maalinta yahay mid walba waa la qabanaya kii aan ka bixin ama ha carareen qaar baa duurka jira qaar baa buuhood la aaday annagu ka caajismayno runtii ciidanka booliisku la dagaalamaya ciidanka qaranku gacan buu naga siiyaa wixii markaa aan uga baahano dadweynahana gacantiisa u baahannahay culimadana u baahannahay. gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir ayaa dhankiisa u hambaliyay ciidanka booliiska gobolka Sool ee soo qabtay khamrigani fariin u diray shacabka reer Sool inay la shaqeeyaan ciidankooda booliiska. waa goob fagaaraha oo ku taala degmada Laascaanood maxkamadaha gobolka iyo degmada iyo rafaanka hortooda halka waxaa goob joog ka taliya qaybta gobolka gudoomiyaha maxkamadda gobolka ku-xigeenkiisii xeeraalihii saad aragtaa waxa yaala 408 dhalo oo khamri ah oo la soo qabtay gacanta ku soo dhigay ciidanka booliiska iyo xeraalintu sifii sharciga la meeyay waxa la hor keenay maxkamadda saakan maxkamaddu waxay go'aamisay in la jijibiyo waxaan halka baa uga dilayaa marka hore ciidanka amniga laamihiisa kala duwan ee ka howlgala gobolka guud ahaan gaar ahaan ciidanka booliiska oo gacanta ku soo dhigay khamrigan inay dirdirgeliyaan hawlaha ay qaranka u hayaan ama ay gobolka u hayaan waxaadna ogaataan ka booliis ahaan in ilaahayda kula xisaabtami doono shaqadan aad dadka u haysaan. markii uu xukunkaasi soo dhamaaday ayaa waxaa goob fagaaraha oo shacab tira badani joogaan lagu jajabiyay khamrigii oo tiradiisu dhammayd 408 dhalo. Samiir Saciid Bila Bulsha TV Laascaanood.